Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada, soo dhawow. Haddii aad tahay qof ay soo gaartay daawadan, kugu soo dhaweynaya marka hore. Midda labaad, Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa bixiya caafimaadka. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu Ilaahay caafimaad buuxa ku siiyo. Annaga waa dadaaleynaa, bini aadan aan nahay, wax gacanteena ku jira ma jiraan. Laakiin alxamdulillaah, sanawaad oo aan cilmi baaris sameynaynay iyo meelo badan aan u marnay daawooyinkan. Ilaahay fadligiisa iyo tawfiiqdiisa ahayd in maanta dadka wax aan siin karno oo rajo u noqon karo Ilaahay subxaana wa tacaala inuu gacanteena soo geliyey. Daawada maanta aan haynana waa midda waddankeena Ilaahay naga siiyey. Geedahaas waddanka ka baxa noocyada ugu sarreeya inuu Ilaahay subxaana wa tacaala daawo nooga dhigay. Taas ayaa aan Ilaahay ugu mahadinaynaa. Midda labaad, dadkana rabnaa inaan gaarsiino dadka u dhashay waddanka Soomaaliya. Waa dad aad iyo aad iyo aad u nasiib badan, haddana mararka qaarkood u nasiib daran. Waxay u nasiib badan yihiin dhulka saa u barwaaqada badan oo cuntadii iyo daawadii iyo barwaaqadii ay taalo. Dadkeedii way kasii cararayaan. Hadday joogaanna ma aaminsana inay wax fiican yaalaan. Dadka intiisa badan dad yar baa ka warqaba inuu waddanka khayraadka iyo waxyaabo badan uu haysto ama leeyahay, ama isku daya inay ilaaliyaan ama ka faa'iidaystaan. Laakiin dadka intiisa badan waa dad meelo kale wax ka arkay. Adduunka ummadaha jooga nala degan waxaa la arkay dad hal geed u baxay magac loogu bixiyey ku faanaya. Halkaa geed maanta oo dhan la leeyahay halkaasuu ka baxaa, geedka halkaasaa laga helaa, ama maaragtay daawada noocaas halkaasaa laga helaa. Waddankii dhanba magaciisa ku baxay hal geed oo waddankaa laga helo dartiisa. Annaga waxaan haysanaa kumaan kun oo geedo haddayna malaayiin ahayn oo geedo wada daawo ah. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin, annaga daawada maanta aan dadka siinayno waa daawo adduunka nala ictiraafay oo intaasoo cilmi baaris laga sameeyey. Qof alla qofkii daawadan ay soo gaarto diyaar waxa u nahay cilmi baaristaas inaan la wadaagno. Wax alla wixii ku jira cilmi baaristaas inaan la wadaagno, wax hore loo yiri iyo wax gadaal loo yiri. Maanta marka waxaa nagu waafaqsan adduunkii baa nagu raacsan in ay waxaan daawo tahay. Annagana markuu na soo gaaray macluumaadka noocaana ama cilmiga noocaana in waddankeena laga helo daawo noocaasa, waataan bilaabnay 7 sano ka hor. 2018 January ayaan waxaan bilaabnay in aan Soomaaliya ka sameyno cilmi baaris ama research iyo experiment in aan fiirino waxa aan maanta daawo ahaan dadka u siinayno inay shaqaynayaan. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, 7 sano oo buuxda kadib, bisha maanta waa January ama bisha koowaad sanadka 2025. Maanta waxay maraysaa 7. Labadii bisha waxaan furnay 2018 labadeedii bisha koowaad ayaan furnay Garowe ka furnay dukaankii ugu horeeyay oo aan ku tijaabinayno daawadan. Sanad gudihiisa alxamdulillaahi rabbil caalamiin, Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna tusay daawada inay shaqaynayso 100%. Maadaama annaga aan nahay hal family oo hawshaan waday ilaa ay haddana sidaas ugu jira. Ma helin fursad weyn oo aan maaragtay cilmi baarista lasii weyneeyo, laakiin intii awooddeena ahayd maanta waa wax aan ku shaqaynayno oo aan dadka ku gaarsiinayno. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, dad badan baa ku kalsoonaaday, Ilaahay u sahlay fursadda ka faa'iidaystay. Maantana adiga hadday ku soo gaartay daawadan aan ka hadlayno waa daawadii Ilaahay subxaana wa tacaala dhulkeena naga siiyey. Annaga inaan soo fududeyno oo dadka u sahlno siday u qaadan lahaayeen ama cilmigeeda u hayno ma ahane. Ma aha wax annaga aan sheeganayno inaan daawada bixino. Ilaahay ayaa daawada bixiya. Laakiin marka la yiraahdo daawada maxay ka samaysan tahay iyo siday u shaqaysaa, cilmigaas Ilaahay kaliya ayaa haya. Maanta waa la baaray, waxaan u maleynayaa 25 ilaa 30 boqolkiiba ayaa la ogaaday daawada ku jirto cilmiga meesha ay ka gaareen dadka. Laakiin inta qarsoon ayaa badan, Ilaahay kaliya u garan karo. Cilmi baaris nooc kasta oo aan raadiyey ama aan 7daas sano aan akhriyey oo meel walba aan ka helay, waxaa arkaysaa inay ku leeyihiin waxaan waa wax aad u weyn. Inta aan gaarnay baaba maaragtay hadda intaan la eg oo aad u badan.
laakiin haddana inta qarsoonaa badan sida uu ula shaqeeyo bini'aadamka jirkiisa, maskaxda, dhiigga, selka, waxaasoo dhan ilaahay keliya garan kara si toos ah ama si buuxda. Laakiin mucjisada maanta la hayo adduunka taalo waa daawooyinkan hadda aan dadka rabna inaan gaarsiino. Marka ku kalsoonow, ilaahay baa daawada bixiya. Laakiin maanta research-yadaasayto haddii aad rabto waa kuu soo diraynaa. Adiga nala arag, adiga nala arag bal waxa anaga aragnay. Anaga maanta ma sheeganayno. Cilmigaa markuuna soo gaaray waa cilmi baaris aad u xoog leh ayaan gelinay. Haddana waxaan ku darnay tijaabo ama experiment, taasoo aan ku fiirinaynay dad xanuunsanaa. Tiina alxamdulillah ilaahay nagu guuleeyay. Marka soo dhawow, daawada aan ka hadlayno waa daawo waddankeena ka baxday. Saddexda mid walba sida cilmi gaarista gaarka laga sameeyo maanta internetka uu buuxo, bugaag laga qoray ay buuxaan, dad badan oo ka hadlaya ama academiga ku jira medical systemka hadda socda ha ahaado ama academiga herbalka ha ahaado. Waxaa la isku waafaqay dhinac walba in ay tahay daawada maanta ugu fiican ugu sarreysa adduunka taalo. Taas oo anigoo aan iga ahayn idinkaa daawadan haya ama waddankiinay ka baxdaa. Marka qof walba wuu nala baari karaa, keliya kalsoonidii unbaa meesha ka maqan. Soo dhawaada, waxa aan hadda ka hadlayana markaan kor aan ka sheego daawada ugu muhiimsan oo aan hadda maanta laf dhabarta noo noqotay oo aan barnaamijkan si maaragtay nagu geesinimo gelisay inaan dadka gaarsiino waa saddexda daawo oo la kala yiraahdo lubaan dakar soomaalida qaar way u yaqaanaan, beeyo waa magaceeda scientifica soomaaliya looga yaqaano, ama english waxaa lagu yiraahdaa frankincense. Nooca hadda aan ka hadlayno frankincense way badan yihiin, laakiin nooca aan ka hadlayno waxaa la yiraahdaa Boswellia carteri. Waa dabcan magacyo niman cadaana oo waddanka intay yimaadeen mar hore arkeen geedahan iyo faa'iidadooda magacooda siiyeen. Yacni magacaasa u baxay frankincense waa yacni caraf oo kale maaragtay kelmaddaas waa incense ku jirta. Marka laakiin Boswellia carteri waa nin magaciisa, laakiin taas ayaa loo yaqaanaa midda Soomaalida oo bari ka baxda oo la arkay in waana midda ugu badan oo laga sameeyey researchiga ugu badan laga sameeyey adduunka oo laga helay daawadii anti-inflammatoryga ama wax alla wixii ku xiran inflammation ama bacteria ama sidoo kale infection daawo u noqon karo, daawo fuli ah, sababtoo ah maskaxda ayay si toos ula shaqeysaa, maskaxday maamushaa. Marka daawadan marka la arkay inay maskaxda maamulayso ay selkii si fudud u geyn karto daawadii oo ay selkii maamuli karto. Selkan waa wax aan ka samaysanahay ama unuga qofka uu ka samaysan yahay. Selkaasna ama unugaas wax walba ma geli karaan, wax kastana ma gaari karaan, ama daawo ha la yiraahdo ama nafaqa ha la yiraahdo, laakiin waa wax gaara selka dhexdiisa. Daawadan aan aragnay oo dadkana ay nala arkeen oo maanta maaragtay alxamdulillahi rabbil caalamiin wixii la hayo. Intaa waxaa ku dheer in ay waxaan ahaan jirtay daawadii qadiimka ama daawadii ancient medicine inay ahayd oo waayadii hore la isku daaweyn jiray. Adduunka waayadii horena wuu naga qaadan jiray iyagoo ku og faa'iidadaas, maantana way qaataan. Intaasoo jeer meel walba waa ka eri, YouTube-kayga waa kaga hadlay. Daawadan maxaa loo qaadanayaa? Maanta oo dhan maxaa lubaanta waddanka looga daldalayaa? Waxaa looga daldalayaa annaga lacag yar baa na soo gashay, lacagtaasna wixii lagu dhisay hadda maba muuqataba. Laakiin wixii ilaahay ugu talagalay waxay ahayd inaan adduunka uga maarano oo aan helno daawo waddankeena daawo ilaahay inuu naga siiyo. Marka saas darteed raalli ahaada qof qolka igula jira waaye. Marka waxaan rabaa inaan maaragtay ii sheeg aan idinka dhaadhacsiiyo inaan ku noqnoqdaan diidaya oo haddana kow soo bilaabo. Laakiin aad waxaan u rabaa in maaragtay dadka ay barnaamijkan nala fahmaan micnihiisa iyo waxa uu yahay. Intaasna waa kusoo celceliyaa. Waxaan lubaantan waddanka looga daldalayo wax kale ma aha, daawadii saxda ahayd aa laga helay, waana midda aan loo qorin in Soomaaliya loo soo celiyay marka lasoo hagaajiyo. Marka alxamdulillah annaga ilaahay wuxuu noo sahlay inaan intaasoo sano aan raadinayno dooska saxda ah iyo sida loo diyaariyo. Ilaahayna tawfiiqdiisa aan ku helnay. Marka tan ugu horeysa waa lubaanta waxyaabaha
daawadan ku jira saddexda ugu waaweyn aan xooga saarayno oo aan dagaalka ku galayno. Midda ugu horeysa waa luubaanti. Luubaantaas oo ah beeyada ama frankincense, baswele, karteri ama waxa loo yaqaano luubaan dekar. Taas marka waxaan aragnay inay tahay inay ka adag tahay bacteria badan, inay ka adag tahay fungal badan, inay ka adag tahay waxaan candida la dhaho, waxyaabaha jirka soo yacni markuu qofka uu jiranayo wuxuu ku jiranayaa inay wixii jirka soo galeen oo ah waxyaabo dhibaya inay ka bixi waayaan oo hadhowna jirka iska dhex fadhiistaan marka dambena nabro ku noqdaan. Nabrahaasna waxa waaye dhacaan waxa la yiraahdo ama mucuska ku jira jirka ayay meel fariisinayaan isagoo sumaysan. Waxaas waa waxa dadka xanuunada ku keena. Marka waxaasay jirka ka bixiyaan haddana tan gaar waxay u tahay dabeecad gaar waxay u leedahay luubaanta noocaana in ay maskaxda si toos oo la shaqeyso. Maskaxda ayay si toos oo la shaqeysaa. Marka alxamdulillaah taas waxaan aragnay waxyaabaha ugu waaweyn oo maanta mucjisada ugu weyn oo waddanka taalo daawo ahaan waa tan luubaan dekar. Maanta mid kala jirto oo aan ka dhicin meediga laakiin tan waa midda researchiga ugu badan laga sameeyey oo maanta meel walba aad ka helaysa online-ka. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin mid waa tan qofka researchadaas u baahan haddaan kasii hadlo waqtigu wuu dheeraanaya laakiin micnaheedu waxa waaye boqolkiiba boqol xalidana igu dambeysay researchida ugu dambeeyay laga sameeyey akhrinayay yacni waxyaabaha aan la yaabay mar walbo waan la yaabaa waxaan akhrinayo wax saxa dadkii soo qorayna waa dad credit weyn u leh inay waxaan ka hadlaan. Marka maraan xali ka fiirinaya xagga neuro protective waxa la yiraahdo ama waxa maskaxda ilaaliya yacni daawada maskaxda inay tahay waxaan akhrinaya article noocaas ah yacni waan la yaabay maanta dadkeena dad badan ayaa madaxa ka xanuunsan waxaana la arkay daawadan inay tahay daawadii maskaxda dad experiment lagu sameeyey iyo sida ay u anfacday ayaan ka hadlay aan akhrinayay haddana ay noqdeen boqolkiiba boqol natiijo sax ay kasoo baxday tii la rabay ah oo ah caafimaad alxamdulillaah. Marka taas waa taas saddexda daawo oo aan xooga saarayna lafdhabarta noo ah midda ugu horeysa waa taas luubaanta. Midda labaad waa midaan dadka loo yaqaano malmalka. Malmal ayaa loo yaqaana qof Soomaali ah ama dibadda ha jooga ama gudaha ha jooga oo aqoonin luubaantaas iyo malmalka way yar yihiin. Dadka dhalinyarada gadaal hadda da'da yar iyo gadaal ka dhashay waxaa laga yaabaa xataa awoowahooda ama hooyadood ama aabahood inay ka maqleen ama ayeedood ama dad qaraabo ah ama dad kale laakiin qof walba way soo gaartay. Malmalkan waa waxyaabaha hadda taariikhdeeni hore wax yarka ka harsan inuu ahaan jiray daawo la isticmaali jiray wax yar yar ayaa maaragtay ka harsan oo dadkeena ay ka hadlaan oo maaragtay ilmaha yararka in loo mariyo in maaragtay sidaas oo kale nabraha lagu daaweeyo wixii marka malmalka maanta saacadahan researchyada aan aragnay oo ugu sarreeyo maanta laga sameeyey malmalka aad u badan oo aan waxba ka dhicin xagga luubaan dekarka ama beeyada waa malmalka. Malmalkan marka aad looga hadlay wixii ugu weynaa oo aan aad ola yaabay waxay noqotay markay yiraahdeen wuxuu noqon doonaa la'ano waxaa hadda shaqeyn la ama resistant noqday antibiyootiga adduunka maadaama uu yahay wax bini'aadan sameeyeen oo gacantooda ay ku sameeyeen oo ay rabaan in ay dadka ka gadaan maanta wuu shaqeyn waaye shaqadiisa wuu qabsan waaye marka adduunka saas xanuunada ugu sii bateen marka lama hayo antibiyootig oo fiican oo shaqeynayo. Markii malmalka baaris xoog leh lagu sameeyey waxaa la arkay inuu iyaga ka hadlayo dhowr meelan ka akhriyay researchyo badan ay leeyihiin malmalka waxay u badan tahay in laga dhigi doono mustaqbalka antibiyootiga mustaqbal dhow in laga dhigi doono waxa kaliya ay gadaal ugu dhigayaan wax kale ma aha waa maadaama malmalkii uu iska yahay wax Soomaaliya dhulka iska yaalo geedo iska yaalo oo dadkiisa xataa rabin ma aha patent kama dhigi karaan masalan ma dhihi karaan xuquuqda lahaanshada annaga iskale maadaama wixii geeda ay yihiin marka waa inay u helaan waxyaabo kale oo lagu daro si markaa hadhoodii loo soo saaro malmalkii daawadiisa waatan dabcan iyagoo waxyaabo kale ku daray magac saaranaya laakiin hadda waxaan haynaa dadkii fursad u haystaan wixiioo sidooda ah inay maaragtay u isticmaalaan alxamdulilah dabcan dowska waa ku guuleysanay
malmalkana waa midka labaad oo aan ka dhicin lubandekerka. Isaga marka gaar wuxuu u yahay maadaama beeyada ama lubandekerka ay maskaxda usii fiican tahay. Malmalka waa antibiotic sida lubaantoo kale, antibacteria bacteriada waxaasoo dhan uu ka adag yahay. Sidoo kale wax alla wixii ku saabsan xanuunada keena germs, virus, candida waxa la yirahdo fungal, waxaasoo dhan wuu ka adag yahay. Intaas waxaa ku dheer uu gaar u yahay bararka, burooyinka. Dadka hadda inta badan xanuunsan waayadan aadka oola tacaamulaynay waxay ahaayeen dadka kansarka, 7 sano weliba kansarka dadka qaba. Kansarkan waxyaabaha keena wuxuu dadka yacni aan rabaa inay qaar ka warqabaan dadka kalena gaarsiiyo. Waa dhacaan aruuray, dhacaan aad u wasakhaysan ama u sumaysan oo jirka uu aruuriyey. Dhacaankaas markuu jirka aruuriyey uu ka bixi waaye, especially dadka caloosha markay wada taagan tahay, wax alla wixii wasakh jirka soo gala way ka baxaan si sahlan haddii digestive systemka ama dheefshiidka si fiican u shaqeynayo. Micnaheedu qofku cuntadii uu cunay haddii ay galabta saakayt wuxuu cunay galabtii ay ka baxayaan caloosha xagga musqusha, dabcan qofka wuu caafimaad qabaa. Laakiin inta badan waxaa la arkay dadka caloosha wada taagan. Marka maxaa imaaday inay suntaas jirka ka bixi weydo. Jirka marka wuu nadiifiyaa, wuxuu leeyahay nadiifin system oo jirka ilaahay ugu talagalay difaaciisa uu aruuriyo wixii wasakha inuu ka saaro. Markuu meel ka saaro waayo, meel buu ku aruuriyaa marka. Meel wuxuu ka dhigtaa meesha qashinka ku aruurinayo. Meeshaas uu ku aruuriyey oo jirka hadda waxay soo baxdaa meesha ugu daciifsan maadaama suntii halka uu ku aruuriyey jirka. Suntaas uu aruuriyey ayaa buro la yiraahdo. Dadka marka waxay dhahaan buro. Buradaas dhexdeeda marka la fiiriyo waa toxinkan, bakteeriyada iyo wixii jirka uu soo aruuriyey baa ka buuxda. Haddii marka muddo waxaa laga yaabaa 2 sano, 5 sano, 10 sano, 20 sano, 30 sano, 40 sano inuu aruurinayo jirka. Qof walba difaaciisa ay ku xiran tahay. Laakiin maalinkii waxa ay noqdaan wax jirkaba aan ka bixinin, marka dambe ereyadaas ayay sumeynayaan. Salkii ayaa marka sumoobaya oo qarxanaya. Qarxiiskaas wuxuu noqonayaa marka suntii ay jirka ku faafayso. Waxaas waa meelaha kansarka ka yimaado. Marka burooyinka inta aynan formin ay sameynin ama ay abuurmin horta ka hortag ay u baahan yihiin. Barnaamijka haddaan ka hadlayno waa mid ka hortag ugu fiican. Dadka ugu fiican oo qaato waa qofkii ka hortag sameeyey intay wasakhda jirka ku aruurin. Cuntadina dabcan in la bedelo qayb weyn ee barnaamijkan ka tahay waa ka hadli doonaa. Inkastoo aan ugu talagalay nus saac laakiin hordhici kaliyaaba hadda maaragtay ilaa 20 daqiiqo sii socdo. Marka almuhim waxaa loo baahan yahay marka in ay dadkii ogaadaan meelaha uu ka imaado xanuunada. Waa markay cunto sumaysan cunaan. Dabcan cuntadeena sun markaan leeyahay ma aha sun oo run ma aha. Yacni sun toosa ma aha. Waxa waaye cuntadii baa waxaa ka buuxo wax toxin la yiraahdo oo jirka bini'aadamka loogu talagalin ayaa lagu soo daray. Waxaas marka maxay keeneen jirka maadaama uu u ogoleen inay dhex galaan ay selka ka mid noqdaan waa inuu ka saaro. Hadduu ka saari waayo marka waa sun bay noqonayaan marka ugu dambeysa isku tagaan. Ilaa 40 sano wuu soo dhismi karaa selka noocaas ah. Laakiin waxaa loo baahan yahay ka hortag. Dadka qaarkood markii ku bilaabmo 2 sano gudaheeda ku soo baxa. Dadka qaarkood sanad gudihiisa. Dadka qaarkood 5 sano. Laakiin yaa la sugin. Inta qofka haysto xabkahan oo kale ka hortag uu samayn karaa. Sanadkiiba hal mar hadduu detox barnaamijkan oo kale uu sameeyo, ka hortag uu sameeyo, subaxii, duhurkii, habeenkii xoogaa doos yar iska sii qaato. Haddana alxamdulillah waxyaabaha aan aragnay daawadan side effect ma laha. Dooskeedana alxamdulillah doos dadka ay ka bixi karaan waaye oo caafimaadkeena ku jiro waxaan u helnay. Marka iyada laftirkeeda prevention ama ka hortag loo qaadan karaa. Marka malmalka daawada hadda adduunka uu ka hadlayo jaamacadaha iyo dadka holistic medicine ku jira ama xataa academiga jaamacadaha synthetic medicine ka soo saaro ilaa hadda waxay ka hadlayaan in malmalka uu noqon doono mustaqbalka antibiotic mustaqbalka. Saasuu powerful u yahay. Saasuu uga adag yahay waxyaabo badan uu ku jiro kansarka selkiisa uu ka adag yahay sida lumaanta uga adag tahay oo kale. Marka isagana yaan la yaraysanin. Daawadanu ku jiraa. Wax walbana waa niyadda. Hadduu qofka niyeysto ilaahay u baryo ku kalsoonaado, ilaaha caafimaad ka bixiya. Jirkan bini'aadamka maskaxdu la shaqeeyaa. Maskaxda hadee waxaan istiraahdo
yacni hadda dadkii Hindi intay aadeen lacagtii laga soo dhameeyey oo ku soo rafaaday oo yacni inta laga soo bixi chemotherapy waa ogahay inay wax suna tahay iyo bahalkan radiationka la yirahdo jirka lasoo gubay markaa kadib ayay dadkana soo raadiyaan laakiin hadday ka hor ay noo imaadaan waxa markii lagu soo sheego wallaahi daawadii fiicneed waa tanaa ilaahay keliya ayaa yaqaano sida wax u shaqaynaya qofka maaragtay haddii ilaahay wax kale ugu talgalay laakiin markaan dadka ka saxnay cuntadii sunti ka saarnay daawadana ay heleen oo wixii barnaamijkaas saa iskugu xiran aan u sameynay in detox loo sameeyo muxuu ahaa qof walba waxay ku xiran tahay xaaladiisa qof bil qof 3 bilood qof 6 bilood qof sanad ayay ku xiran tahay in horta marka hore jirka laga dhaqo sunta haddana la daaweeyo daawadan la siiyo oo ka adag bakteeriyada iyo waxaas marka dambena la nafaqeeyo jirka saddexdaas approach markaan qaadanay ama nidaam ilaahay wuu noo barakeeyey wuxuuna tusay inay shaqaynayso marka waa intaas waxaan wadno maanta waa barnaamij detox la yiraahdo sunta marka hore qofka in laga dhaqo suntan oo soo aruurtay intaasoo sano ama caloosha ha ka bilaabato ama maaragtay xiidmaha hoose ha ka bilaabato ama dhinaca kore waa un caloosha mushkiladda aan daaweynayna isku dayayna inaan ka caawino dadka waa mushkiladda caloosha waa gut problem waxa la yiraahdo gut digestiveka oo dhan gutskaasaa la yiraahdaa waa inaa laga caawiyo qofka ilaa wuxuu afka ka qaatay ilaa wuxuu meesha tubadaas isku xiran ilaa musqusha u geyn lahaa inay nadiif ahaato shaqadaas waa waxa anaga ku jirno haddii intaa la helo jirka nafaqa kaliya u baahan yahay in la nafaqeeyo oo la siiyo cuntada saxda ahayd waxaan beebeenta dadka inay iska cunaan cuntaa la cunay waxay tahay lama yaqaano micnaheeda xaggee laga keenay waagii dadka cuntada gacantooda ku samaysan jireen way caafimaad qabeen laakiin markii dadka waxaa la yidhi qofka ugu faqiirsan waa qofka cuntadiisa qof kale usoo sameeyo annagana waddankeeni saasuu barwaaqo u yahay dad kalaan cuntadeena intay noo soo sameeyeen sun noogu soo dareen marka cuntooyinka hala joojiyo cuntada waddanka hala cuno qof walba waddanka uu joogo cunto ka baxdaa jirta soomaalida meelo badan ay kala joogaan waa la samayn karaa waddan walbaa joogto cunto dabiiciyuu leeyahay marka alxamdulilah kan labaad waa malmalka midka saddexaad saddexda daawo oo aan xoogga saarayna inaan dadka siino midda saddexaad waa hadiga xabag hadi ayaa la yiraahdaa dadka xabag hidi dhinaca waxaa laga dhahaa koonfurta xabag hidi xabag hadina waa la yiraahdaa af soomaali ahaan englishka waxaa lagu yiraahdaa sweet mare malmalkay u eg tahay sweetka waxay ugu bixiyeen carafta way ka caraf badan tahay malmalka inkastoo malmalka laftigiisa uu caraf leeyahay xabag hidi english waxaa lagu dhahaa sweet mare sweetkii caraftii macaaneyd oo kale u bixiyeen malmalkiioo macaanay u bixiyeen waa caraftaas labadaba waa kharaar labadoodu midba mid kale uu ka kharaar badan yahay dadka waxay dhahaan kharaarku wuuna dhibaya dadka qaarkood waxaa loo qalaa isbitaallada u tagaa inay caafimaad raadinayaan marka kharaar iyo waxyaabo yaryar dad ka hadlaan kharaarka iyo bakteeriyada isku meel ma geli karaan kharaarka iyo fangalka isku meel ma geli karaan dadka waa inay ogaadaan waxyaabaha kharaarka waa waxyaabaha jirka daawadiisa ku jirto marka aad u kharaar yahay isaga iyo malmalka lubaanta ugu soo roon kharaar ahaan laakiin kharaarkaas waa markuu jirka galo waa inuu marka ogyahay qofka in uu maaragta sokortii jirka soo gashay especially sokortaan xun la cuno oo lasoo sumeeyey hadday jirka ku aruurto waxay keentaa waxaan la yiraahdo mucuska sumaysan ama balqam english carabiga lagu dhahaa umaleynaa soomaaliga waa xabag wax dhacaan xabag camal noqonayo oo sumoobaya jirka ku jiro waa waxaas keenaa hadda markuu ugu yaryahay dadku waxay arki karaan hargabka laga arki karaa isagoo fudud markuu qofka hargabka kasii baxayo waxaa yarka markuu qufuco kasoo go-ayo waxaas baa jirka dhexdiisa fariisanaya oo weliba sii madoobaanaya markuu hargabka yaryahay yalow jaalle iyo waxaas uu dhow yahay laakiin hadhowdii wuu sii madoobaan dhiig madow meel fadhiyo iyo qashin uu noqonaya markuu hadhowdii sumoobaya jirka marka waxaasoo dhan bay ka adag yihiin hadiga waxaa la arkay inuu malmalka ka dhicin lubaanta ka dhicin aad antibiotic u yahay haddana uu yahay waxyaabaha maaragta ii sheeg la dagaali kara xanuunada maanta waaweyn oo adduunka yimid maanta xanuunada ugu waaweyn oo anaga aan la diilgaraynayn oo alxamdulilah daawooyinka aan kula dagaalanay waxa ugu badan kansarka ma dhahayna kansarka daawo u helnay oo bedelayna sababto anaga ma rabna in nala soo raadsado laakiin experimentigan waa ku guuleysanay barnaamijkan ah in qofka sunta laga dhaqo daawadan la siiyo
la nafaqeeyo jirka waa ku guuleysanay saddexdaas stage alxamdulilahi rabbi alcaalamiin saddexdan daawaana u ah base walilaahi alxamd midda ugu dambeysa hadhowda aan ka hadli doono oo aan ka dhicin saddexdooda gadaalay kasoo raaci doontaa midda afraad laakiin xabag ma aha insha allahu tacaala waa ka hadli doonaa laakiin hadda hadiga kama dhaco malmalka saddexdooda marka laisbarbar dhigo dabcan aniga choice ahaan luubaan degarka ama beeyada maadaama maskaxda ay la shaqeyso sidoo kale malmalka burooyinkaas hadda waxaan ka hadlayna burooyinka iyo dhacaanka aruuraya oo wasakhaysan buu jirka ka saaraa bararkuu jirka ka saaraa iyo caloosha gooryaanka galo bahlada qaarkood oo gooryaanka caloosha galo wuu ka saaraa all waxaasoo dhan isku soo aruuri waa caafimaadka waxyaabaha laga helo malmalkii isagana khaas wuxuu u yahay burooyinka bararka iyo parasiteska ama gooryaanka caloosha galo qaar ka mida marka hadda waxaan ka hadlaynaa hadiga isagoo lamida luubaanta iyo malmalka oo bakteriyada iyo inflammationka iyo infectionka waxaasoo dhan ka adag yahay antibiotic dabiici uu yahay waxaa soo raacay in uu leeyahay si gaar ah isaga xagga neefta iyo murqaha inuu la shaqeeyo murqaha iyo neefta daawada neefta dadka aan siino daawadan ayaa ku badan marka waxa waaye waa daawadii waxaa la arkay neefta murqaha iyo wadnaha intaasba inay ku jirto waxaa laga helay daawadan aniga ma sameyn researchigan markaa helay baa experiment geliyey waana ku guuleysanay walilaahi alxamd aniga iyo tiimkayga laakiin yaa sameeyey researchyadan oo soo saaray oo anigana aan arkay experimentiga aan ku proof gareeyey haddaba waxaa soo saaray jaamacado waxaa soo saaray adduunkaas waxaa soo saaray dad badan oo lacag geliyey dad badan oo herbalka aaminsan dadka holistika ka shaqeeya dad badan ayaa maanta ilaahay hawshaan u diray annaga aan ka seexanay oo maanta waddankeena iska kala daadsan tahay marka waa intaas hadda markay noqoto daawo ahaan daawada ugu sarreyso oo aan barnaamijkan u hayno oo qofka aan rabno inuu ku kalsoonaado waa intaan yar iyo weyn mid walba daawadiisa waa u haynaa qofka da'diisa iyadoo loo fiirinayo caafimaadkiisa meeshuu maraa isagoo loo fiirinayo waxyaabo badan ayaa marka intaan aan ugu sameynaa dadka haddana ilaahay subxaana watacaala ayaa caafimaadka bixiya waxaan rabnaa in ay dadka ay ogaadaan in ay tahay daawadii ilaahay subxaana watacaala na siiyey intaani inka badanna qofkuu naga helaya haddii uu nala soo xiriiro dabcan youtube-kayga iyadoo ku qoran af soomaali aan ka hadlay ayaa ku jira websitekeena iyadoo englisha ku jirta researchyada dhanna waa based on english qofkii rabo oo raba inuu akhriyo waa u haynaa yacni intaas ka badan maxaa la sameynayaa inuu qofka ilaah ku kalsoonaado keliya waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin midda ugu dambeysa afarta daawo oo aan xoogga saarnay oo barnaamijkan ku jiro oo aan ahayn xabagta waxa waaye caleenta caloosha socodsiisa sina englishka waxaa lagu dhahaa SENNA englishka carabiga waxaa lagu dhahaa salamaki soomaaliyana dhinacaas puntland ayaa aan ku bartay magaca loo yaqaano jaleelo laakiin dhinacan koonfurta markaa ka baaray waa ka waayey magaca loo yaqaano marka jaleelo ayaa la yiraahdaa bahashaas haddii ayna ku jirin programkan xabkahan saan powerful ku ah ma shaqayn lahayn sababto ah waa midda ugu horeyso oo caloosha inay nadiifiso aan u isticmaalno inay caloosha hoose oo xiidmaha waxa aruuriya ay ka bilowdaan inay nadiifiso ayaan u isticmaalnaa waana midda ugu sarreyso oo intaan xabag oo aad yacni daawada xoogga leh ah ayna ka maarmin haddaana stepkan aan la marin caloosha in la socodsiiyo haddaba daawadan kale ma shaqaynayso lianno waa meesha albaabkii oo noo furi lahaa waa inuu qashinka jirka ka baxo marka albaabkaasoo xiran waxa ma shaqaynayaan dadka inta badan waxay ka hadlaan baawsiir waxaa nagu dhacay dabcan wixii suntii markay jirka kasoo baxayso nabaray sii samaynaysaa hadday isku tagto soo bahashan waa inaan mar walba qofka u qaadanayo gurigiisa u taalaa fiican waa meesha ay ka bilaabata xanuunada marka taasaa hadda kusoo xiraya barnaamijkan inta isku xiran waatan nafaqadana gadaala kasoo gelaya insha allah waan ka hadlaya laakiin waa intaan waxa aan rabno dadka in aan daawo ahaan u gaarsiino kusoo dhawaada barnaamijkan magacayga waxaa la yirahdaa Sucaad Maxamuud Cali 7 sano ayaan barnaamijkan wadaa tiim badan oo ila shaqeeya jirto ilmahayga ugu horeeyaan meel walbo tagana intaasoo qof baa aan shaqada nala soo gasho saacadda hadda aan joogno waxaa nala shaqeeya Cabdiraxmaan iyo Cabdiqani
oo Soomaali ka shaqeynaya, Cabdiraxmaan oo Nairobi ka shaqeynaya. Ku soo dhawaada barnaamijka. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.